السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada janalka Qaalin Media. Haddaad tahay daawado cusub ee rukumo kanaalka oo subscribe-ta ku dhufo, haddii aad hore ugu jirtana like-ta iyo comment iyo share-ka la dhac. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Rajab Tayyip Erdogan iyo xaaskiisa Amina Erdogan ayaa la kulmay tiro qoys ah oo ka mid ah shuhadada afurka bisha Ramadaan oo ka dhacay qasriga Dolmabasha ee Istanbul. Khudbadu madaxweyne Erdogan ka jeediyay intii lagu guda jiray barnaamijka afurka ayaa ugu dambeyn ugu hambaliyay caalamka Islaamka bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan oo bilowgeedu yahay naxariis, dhexdeeduna tahay cafis, aakhirkeeduna yahay ka xoreynta naarta. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in sanadkan uu doonayo inuu maalinta koowaad ee bisha Ramadaan uu la afuro qoysaskii ay ka geeriyoodeen shuhadada si la mid ah sanad walba, waxaana uu u hambaliyeeyay qoysaskii afurka sameeyay. Waxaan wadnaa dadaalo aan kala joogsi lahayn oo lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in bisha barakeysan ee Ramadaan ee dadka deegaanka iyo bini'aadamka oo dhan u horseedi doonta wanaag iyo faa'iido. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi, sida aad ogtihiin, 2 sano ee u dambeysay waxaan ku soo qaadanay bishii Ramadaan ee uu hadheeyay xanuunka corona. Waxaana u mahadcelinaynaa Allaha awoodda leh oo aan si weyn ugu gudubnay cudurkan. Idinka Alle waan soo gabagabayn doonaa dhowr bilood gudahooda. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in caalamku uu soo dhaweynayo bisha Ramadaan ee sanadkan iyadoo laga duulayo dagaalka ka socda waqooyiga Badda Madow, kaasoo saameyntiisu siyaasadeed iyo mid bulsho gaaray dalka Turkiga. Waxa uu intaasi ku daray, waxaan wadnaa dadaalo aan kala joogsi lahayn oo lagu soo afjarayo dagaalka ka socda Ruushka iyo Ukraine, kaas oo aanu leenahay xidhiidh dadnimo, siyaasadeed, dhaqaale iyo mid taariikhdaba. Waxaanu si gaar ah u rajaynaynaa in dagaalkan oo cawaaqib xumadiisa aanu dareennay uu islamarkiiba soo afjarmo, sababtoo ah waxay carqaladaysay isku dheelitirka ganacsiga caalamiga, heerarkiisa kala duwan, tamarta ilaa iyo cuntada. Masiibooyinka bini'aadamka ee aan horey ugu soo aragnay Suuriya ayaa hadda ka dhacaya Ukraine. Sawirkani wuxuu mar kale ina tusayaa sida ay muhiimka u tahay in la ilaaliyo dalkeena hooyo, lana ilaaliyo xorriyadda oo aanu ilaalino sharafteena. Waa in aynaan ilaawin in kii aan dal lahayn aanu ku raaxaysan karin xorriyadda, kii aan xorriyadda haysanna aanu sharaf lahayn. Sidoo kale waxaa jeclahay in aan yar ka hadlo safarkii madaxweyne Erdogan ee Uzbekistan, asagoo casuumaad ka helay dhigiisa madaxweyne Shavkat Mirziyoyev ee Uzbekistan. Waxa ayna ka wada hadleen sida ay calaaqaadkooda u xoojin lahaayeen dhanka dhaqaalaha iyo dhaqanka iyo taariikhda ka dhaxaysa iyo siyaasadaba. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa gaaray qasriga Koksarey ee caasimadda Tashqanda, waxaana xaflad rasmi ah ku qaabilay dhigiisa Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, halkaasi oo si rasmi ah loogu qabtay
fagaaraha qasriga xaflad soo dhoweyn ah oo lagu sameeyey madaxweyne Erdogan, waxaana lagu garaacay heesta calanka labada dal. Kadibna waxay labada madaxweyne dib u eegis ku sameeyeen ilaalada sharafta. Kadib markii uu madaxweyne kasta xubnaha wafdigiisa la kulmay sawiro ay isdhaafsadeen, waxa ay labada mas'uul u guureen qolka shirarka ee qasriga oo ay kulan laba geesood ah ku yeesheen. Madaxweyne Erdogan iyo dhigiisa Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ayaa sawir qoyska qaad ka hor xafladda soo dhoweynta. Madaxweynaha sidoo kale markii uu mataarka ka soo degay ayaa qoladii fanka soo bandhigeen ciyaaro hidde iyo dhaqan u ah dadka Turkida iyo labada dal ka dhexaysa Turki iyo Uzbekistan. daawasho wacan. intaa kadib, haddii qadar yar aan u jaleecno dhanka iyo Pakistan, waxaa ka soo baxaya warar farxad leh halkaas oo gudoomiyaha baarlamaanka xisbiga cadaaladda ee Imran Khan ku tilmaamay xildhibaanada ka soo horjeeda ra'iisul wasaare Imran Khan in ay yihiin kuwa qaa'in wadan ah oo dana kale ku shaqeeya. Sidaa awgeed, fadhiga baarlamaanka la laalay intii dowlad cusub laga dooranaya, sidaana ra'iisul wasaare Imran Khan oo xilkiisa ku sii guto waa arrin farxad leh. Haddaba daawadayaal, waxaan idinkaga tegayaa intii kulanti dambe ammaano Allah. sidoo kale waxaan Allah ka baryaynaa in uu acmaasheena naga aqbalo bishan Ramadaan ee barakeysan. Nabiga ku saliya.